Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaama asxaabta quruxda badan meel walba oo dunida dacaladeeda ka joogtaan. Channelka naga daawanaysan waa Maria Cooking Channel, aniguna waa Maria. Asxaabta quruxda badan maanta waxaan idin wadaa cheesecake aad u qurux badan, aad u macaan badan, aadna u fudud. Cheesecake-kaas oo aan kaaga baahnayn wax farmaajo freeska ee ricotta, mascarpone, gelatin xitaa waad ka maarmi kartaa. Anigu waan ku daray 5 gram aan ku daray, laakiin adigu waad ka maarmi kartaa waayo ani waxaan u baahnay si degdeg ah inuu igu adkaado oo igu dhago. Gelatinadan wax kale ma samayso, way dhijisaa oo keliya. Hadday wixii jaa adag yihiin hadda yogurt oo kale yogurtka adag waayay ma kaaga sii baahno. Marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan asxaabta quruxda badan. Waa kana hadda qaybtii koowaad marayna waxaasi waa sokorta qarfaha, sokorta madow, qof walba sida u taqaano, subag iyo buskut. Hoosta waxaa laga sameeyaa intaas oo keliya. Qaybta dambana waa yogurt iyo sokor iyo baan. wax kaloo saas u sii weyn uma baahnid. Talaajada ani waxaan geliyay muddo 3 saacadood ah, laakiin adi haddii aad geligtid gelatin la'aan waxaa gelinaysaa 10 saacadood, 8 saacadood, waxaa aad awoodid, laakiin aan ka yareynin 8 saacadood. waayo inay dhegto aa loo baahan yahay. marka dartan isku soo darsanayna insha Allah taala ingredientahane hoos ku soo qori doona insha Allah taala waxa aan ka sameeyay oo dhan. aada u mahadsantiin walaalahayga quruxda badan sida aad igu xirantihiin. asxaabtii hore iyo la joogtana aad iyo aad u mahadsantiin la joogitaankiina iyo waqtigiina quruxda badan. asxaabtaygu cusub oo hadda igu soo biirtan waxaa idin la soo dhawaada. channelku waa channelkiini waxba ismartiyeenina insha Allah taala. waxaan rajaynaa insha Allah taala inaad ka faa'iidi doontaan. daawasho wacan. buskudkii waan dhajiyay waxaan geliyay talaajada muddo 30 daqiiqo oo ku jira insha Allah taala. waxaa u baahan tahay baan gelatinada waa iska dayn kartaa haddaad doontaan. gelatin waan ku darsanay 5 gram sidaan hore idinkugu sheegay. sokorta budada waa yogurt vanilla kan isaga wajaa macaan iyo wuxuu ka samaysan yahay caraf maasha Allah. iyo yogurtka fadhiyo oo cadka oo wax dhadhan aan lahayn. gelatinada waa taas kaleeto haddaad u baahnayn waa iska dayn kartaa oo waqti degdeg aad u rabin. hadartan waa yogurtka cadka ahaa. yogurtka cadka sidaas uu adag yahay. yogurt kaleeto isna maasha Allah aad u adag yahay. kana labada yogurt isku sidana waa soo cabirtay. waa kana baanna waxaa ku sameynaya makiinad weyn kuma isticmaalay. waxa dhanna makiinad kuma isticmaalay maanta. waxaa ku isticmaali doona gacanteeda si uga faa'iideysta dadka makiinada iyo waxyaabahaas aan haysanin. hadda waxaa ku daraa sokorta budada half yar ku daraya. makiinad weyn kuma suubinayo. makiinada siriista oo gacanta cid walba ay heli karto ama ay haysato aan ku isticmaali doona insha Allah taala. meel kalena ma ku isticmaali meeshan oo kaliya yogurtka iyo sokortan half-ka iyo hartay insha Allah taala. iyo baanahan waxaan isku soo dhex galin doona gacanteeda insha Allah taala. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. wax walba gacantaada waa isticmaali kartaa. laazim ma aha makiinad inaad haysatid. haddana waa kaas yogurtka si fiican isku dhex gelinaya. marka si fiican isku dhex geliyay waxaa ku daray sokortii budada ahayd iyadana si fiican u dhex gelinaya. marka si fiican isku soo dhex galaan waxaan ku darsan doonaa insha Allah taala baanihii oo soo shiiday. baan adag aan ka soo dhigay insha Allah taala. marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. waxa oo dhexdiisa madmadowga kana waxa waa yogurtka vanillada waxa ku jirta vanilla yar oo madmadow. haddaad arkaysan wax yar oo dhibic madmadow ku jirto. hadda kana waxa ku daraa baanaha ma u baahna inaad si xoog u dhex gelisid. waxa sameynaysaa una laata macnaha hal dhinac kaliya asas ugu wareejinaysaa qaandada. macnaha qaandada ma ka waalaysid xoog dhinacyada kale ma u wareejinaysaa. hal gees la u wareejinaysaa si wuxuu u noqdo si yaroo liishe oo qurux badan oo isku dhex galane. waxa laga yaabaa inay waqti yar ka qaadato laakiin
ku dadaal inaa hal dhinac le u jiiraysid aad jiirada hal dhinac le u jiiraysid gacantaada oo dhinac walba aadan u jiirin baanahana aadan hal mar ku wada shubin oo wax yar aad ku shubteed wax yar wax weyn ma ahan waa wax yar oo aad u fudud laakiin haddaa ka waashid wuu kaa halaabaa marka ha ka waalin si degan tartiib ah videoga oradan ka dhigay waxaan rajaynayaa inaad fahantiin si uusan idinkugu dheeraan wixina aad u fahantiin bilow ilaa dhammaad aad ula socotiin oona idinkugu dheeraan sidaas darteeda orod uga dhigay waxaan rajaynayaa marka inaad fahmi doontaan insha allahu tacaala kasabaanaha wax yar qaanda oo soo qaadanaya sidaasaan ugu walaaqay hal dhinac bis taas si fiican u arkaysan hal dhinac bis u wareejinayaa dhinaca labaad ma u wareejinayo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad ka faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala muhiimadda waxay tahay inaad hal dhinac u wareejisid welibana hoos ilaa kor ay isdhexgelisid ma ahan kor oo kaliya inaad ka shaqaysid waa ina hoosna aad ka shaqaysid hoos ilaa kor ay isdhexgelisid waaye marka ka faa'iidayso waxaan asxaabteeda quruxda badan mar walba waxaan jeclaa raaligelintiina iyo wixii aad markaas si fiican way u fahmi karaan aan isdhahayo ibni aadana ahay marka waxyaabaha haddaa u baahantihiid oo kaleetood waxaa igala soo xiriiri kartaa snapchat instagram kaleeto hoos kusoo qori doonaa insha allahu tacaala waad mahadsantihiin asxaabta quruxda badan haddii kale commentin waa igu soo qori kartaa asxaabteeda quruxda badan sidaas quruxda badan ayay noqotay hadda waxaa ku darsan doonaa jalaatinadan waxaan ku kariyaa biyo waa 5 gram oo kaliya jalaatinada markaas soo arkayso oo ku dartid waxay noqonaysaa bibiyo wakaas aad kulli wax yar waa adag yahay magtaa yoogidka soo ku din kartaa dad 8 saacadood talaajada ku haysid qalaas uu isaga dhagaaybo laakiin aan 3 saacadood bis araba inuu ku hayo waxa ku daraya jalaatinada si fiican isku soo dhaxgelinaya waxa laga yaabaa inaad u aragtid bibiyo marka jalaatinada lagu daro laakiin iyada wax walba ka awood badan oo si adkeynayso maasha Allah ibacdan buskudkeena ku dil daran doonaa oo jaa diyaarsa 30 daqiiqo ay ka soo wareegtay inta talaajada ku jirinta habeenayo dhan isdhaxgelinayay marka alxamdulillah ka sahe ibacdan jaritaankeedii iyo dhadhamitaankeedii la ka xigo isku dhamaatay saas ay u fududahay ma aha wax saas u sii weyn waxaa rajaynayaa dadka farmaajo fresco mascarpone ricotta dadka heli karin inay ka faa'iidaystaan waa yogurt sokor iyo buskud iyo subag kale Soomaali xitaa wuu buuxaa marka insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan hadoo la wada karaan noqdo سامش سكشونا كدمنا تلاجة قلينا يا أفتر 6 ساعة إن شاء الله